السلام عليكم ورحمة الله. كسو دوادا كانال كينا سرماني. كنت أصلي fal halis ah oo uu sameeyay nin maseersan. mid ka mid ah ragga ku nool magaalo ku taala wadanka India ayaa soo galay saldhig ay joogeen ciidamada booliska isagoo jawaan ku siday madaxa haweeneydiisii oo uu soo jaray, isla markaana gacanta sidoo kale ku watay baangadii uu ku soo dilay isagoo ku eedeynayay inay khiyaantay. Satish ayaa watay jawaan uu dhiig badani ka da'ayay isagoo hadba dhinac u walfinayay aadna u qeylinayay. ninkan oo da'diisa lagu sheegay inuu jiro 35 sano ayaa muuqaalo ay kaamirada duubtay waxaa la arkayay isagoo u soo dhawaanaya mid ka mid ah ciidamada booliska. muuqaalka la duubay waxa uu bidhaaminayaa ninkan oo soo galaya saldhigga booliska magaalada ku taala bariga India ee Ajambura. waxa uuna askariga ka tirsan ciidamada uu ku leeyahay mudane tani waa xaaskayga Rooba, waxaan siiyey dhammaan wixii jacayl ah oo aan karay, laakiin waa ay khiyaantay. jawaankii uu lalminayay ayuu madaxeeda ka soo bixiyay waxa uuna leeyahay dareenkayga ayaa aad u kacay markii aan ku arkay nin kale. hadalkiisa ayuu sii watay waxa uuna yiri ninka aan ku arkay waxaa la yiraahdaa Sunil, xitaa waxa ay u soo qaaday lacag dayn ah oo gaaraysa 3,170 euro, waxayna siisay jacaylkeeda. ciidamada ayaa xiray kadib markii ay ku raadiyeen oo ay heleen qaybtii kale ee jirkeeda, waxayna hadda ku hayaan baaritaano dheeraad ah. taliye lagu magacaabo Ramachandra Naik ayaa waxa uu sheegay in booliska ay la kulmaan kiisas badan, laakiin arrintan ay tahay mid ku cusub. daawade haddaba dhacdadan waa dhacdo aniga xataa igu cusub oo aan aad ula yaabay. ileen waa nin maseersane. maseerku kaliya tilmaam uma aha dumarka, sidoo kale ragguna way maseeraan. halkaas waxaa inooga eg daawade mawduuceeni maanta. haddaba haddii aad videoga ka heshay like saar, haddii aad kanalka ku cusub tahay subscribe saar, ra'yigaagana ku soo qor commentiga.